warmurtiyeedkan ka soo baxay hay'adda horumarinta haweenka Soomaaliyeed ee SWDC ayaa lagu cambaareeyay tacadiga ka dhanka ah haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday degmada Afgooye ee lagu dhibaateeyay laba gabdhood oo walaalo ah oo da'yar. Maryan Daqal Xuseen oo ah madaxa arrimaha haweenka iyo xuquuqul insaanka SWDC ayaa ka codsatay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda in ay iska kaashadaan ka hortagga tacadiyada loo geysto haweenka Soomaaliyeed. meydkii la siisay maxaa u dambeeyay la yiri waxa u dambeeyay 4 jir iyo 5 jir dhibaatooyin loo geystay marka waxaan codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed inay isku duubni dhacdo laga wada gaashaanto waxa dhibaato sameynayna si isku duuban bulshada u wada raadiso iyadoo ay kor joogan ciidamadeennii biliiskii oo u taagan ay diyaar u yihiin iyo dhamaan hay'adaha ku shaqada lahaa baarista dambiilaha iyo dabagalkiisaba marka waxaan leenahay isku duubnaha dhacdo aniga warkayga intaas ku soo koobaya. Shukri Diini oo kamid ah ururka cilmi baarista haweenka Soomaaliyeed ayaa shaaca ka qaaday xadgudubka ka dhanka ah haweenka Soomaaliyeed in ay sabab u tahay maandooriyaha oo dalka ku soo batay. inta kalena waxay tahay sida ula socotaan xadgudubkan maxaa keena waxyaabo badan ayaa keena waana ogsoonahay shacabkeena waxaana la ogaaday in wadanka daroogo fara badan uu soo galo daroogadaas ay dad qaarkood ay isticmaalaan waxa loo baahan yahay dawladda waxa looga baahan yahay in daroogooyinkaas la baaro oo wadanka ku jiro meelaha ay ka imaanayaan talaabana laga Sahra Maxamed Axmed oo ah madaxa hay'adda SWDC ayaa saxaafadda u akhrisay war-saxaafadeed dhowr qodob ka kooban oo laga soo saaray warbixin ka hadlaysa tacadiyada loo geystay haweenka Soomaaliyeed sanadyadii la soo dhaafay. waxa ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda aan la wadaagaynaa xadgudubyada ma ahan mid laga aamusi karo ama la dhageysan karo ama kaliya warbaahinta in laga sheego u baahan sidaan hore u sheegnay mas'uuliyiinta dawladda oo ay ku jiraan dhammaan noocyada kaysaska aan kor ka soo sheegnay waxaan rabnaa in aad iyo aad wax looga qabto bishii la soo dhaafay ilaa maanta waxa dhacay 31 kufsi oo isku jiraan 22 ay yihiin caruur da'dooda aad u dhaxaysa 3 jir ilaa 16 jir 12 kalena waxay ahayn haween kaysaskaas oo gacanta lagu haayo biliiskana la soo socodsiin badidooda waxaan shacabka Soomaaliyeed soo jeedinaynaa arrimo markaan ah anagoo dhibaatooyinkan waalidiinta Soomaaliyeed ku nool yihiin aad uga danqanayna qoysaska waxaan u soo jeedinaynaa waalidiinta in ay dhiifonaadaan ama dadaalaan ilaalinta carruurta marka ay joogto guriga iyo marka ay ka maqan yihiin. Liibaan Cabdi Cabdo warbaahinta qaranka Muqdisho.